sida qaaliga waxaynu ka nasnaa maanta axada aan idhaahdo barnaamijyada ay applicationada barnaamijkan barnaamijyada xiisa badan waa qofkii ama sanabkii tufayay ama biyuhu ay soo dareerayeen iyo weliba waxyaabo badan oo aad u qurxoon sida buur aad moodo inay tahay maroodi sadarkasan gacankeedana u galo biyaha dhexdeeda aad faraska ka muuqdeen dhammaantii waana sawirada aad baraha bulshada ugu faafay sanadadii ugu dambeeyay waana goobaha ay aad iyo aad dadku tagaan waxaan ku yaallaa wadanka la yiraahdo Thailand wadanka Thailand ayuu ku yaallaa baan rajaynayaa geedkan aad arkaysaan isaguna waa geedaha adduunyada ugu layaabka badan leh waxaan u baxay sida basharka inkastoo dadka qaar aadaan waxaaba hidda raacay qaabkii loo daldalay nabiyullaahi Ciisa calayhi salaam dhab ahaantii geedkan markaad u fiirsato qof baad moodaa bashar ah oo dhab ahaantii la halaagay balse geedkan markaad usii fiirsato waxaabaad moodaa inuu u eegahay qof dumar ah ha yeeshee dadkan u dhaafi doonaa fafaalada waa geedaha ugu la yaabka badan sanada 2017 waana baraha bulshada sawirada aad iyo aad ugu hadalhaynta badan leh ee ay bulshadu badanaa is dhaafsanayso muuqaaladan dhab ahaantii markaad u fiirsato waxaad sononaysaa waa muuqaal aad u cajiib ah bal u fiirso goobtan waxay ku taalaa bartamaha badweynta Indianka waana goob aad iyo aad ay dadku ugu dalxiis tagaan waana goob qacan ku rimaysa ama basharku qacantooda ku sameeyeen kolba sabay dadku u yiraahdaan waana goob aad iyo aad loogu dalxiis tago doon yar baa tagta oo aad arkasan labada gacmoodna waxa u dhaxeeya bridge yar oo la iskaga talaabo waana goob aad iyo aad ay dad mil aadan uga shaqeeyeen kullay alla ilaahay wax kasta waa awoodaa aynu halka u dhaafno waxayna ugu xigdoona barnaamijkeedan wadadii dabaasha wadadan markaad u fiirsato kullay adduunka maan arag anigu inta noolaa waa xaweeye sawir ama muuqaal muujinaya wado biyo ah oo dadku ay dabaashaan balse sawirkani waa sawirada ay dadku isweydiinayaan waxaana ma xaqiiqba ma beenba ma runba ma dhabba balse wax kastoo ay tahay xaqiiqda adduunyada kulli qofka basharku ay qan aqligiisu la kaashan waxayna ugu xiga hotelkii waa hotelka khiyaaliga waa mid kamid ah hoteelada ugu qaalisan adduunka ee laga sameeyay goobaha Amazonka ama goobaha la yaabka ah waana ku yaala hotelkan aad arkaysan waa guriga yar oo ay badanaa dadku yaqaan guriga riyada wadanka Thailand waana goobaha dalxiiska adduunyada ugu layaabka badan leh barnaamijkeena waxa inoogu xigi doona haddii Ilaahay raalli ka noqdo sawir aad u qaaliyeysna oo aad iyo aad indhaha soo jiidanaya wali geedkan ma ku aragtid dunida guudkeeda inta saarneed bal adiga ayaan ku dhaafaya saaxib balse geedkan waa geed aad u qurux badan oo kullay aan oran karo waa geed naadir iyo dhif ah qofka arka kullay cadceed marka liiqa sii dhigaso ayaa filayaa inuu ay ka soo saara qaateen kullay inuu jiro iyo inaanu jirinada aanu ma arag laakiin idinka ayaan diidaynaa wixii faala asxaabteeda qaaliga oo walaalkan Cabdi Ismaan xir subax loo idin leh meel kasta ku sugantiin farxad ku noolaada ciidan ciideedana Ilaahay inuu gaarsiiyo nabadii caano